maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee ugus al-shabaab al-qaacida oo cudud ahaan ay wiiqeen ciidanka ammaanka ayaa tacadiye u geysta dadka rayidka ah. warbixintan soo socota waxaa gobolka Bay inooga soo diyaariyay wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warama Siraaji Sheekh Isxaaq waxa uu ku eegayaa qoysas deganaa deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay oo mar qura ay dileen aabihii iyo hooyadii. warbixintan waatan waxa uu kamid ahaa kuwii ugu xanuunka badnaa tacdiyada xad-dhaafka ee maleeshiyaadka al-shabaab ay kula kacayso dadka birmigeedada ka dhacay gobolka Bay. Ibrahim Madaxay iyo haaskiisa Qureyshe Xuseen Dhigane ayaa afuray xilliga dhaqarqabiyaasha al-shabaab laba maalin ka hor ay ku dileen hooygooda deegaanka Awdiinle. gudoomiyaha deegaanka Awdiinle Cali Xuseen Cali ayaa sheegay in Ibrahim Madaxay uu kamid ahaa ganacsatada deegaanka balse ilaa iyo hadda ay ku wareersan yihiin sababta dhabta ee loo dilay. Mayba dilkaas meel ka dhii way bahay dil oo iyo dan foolham yahay mayba jeesiday nimankan oo nabadiidka waana kallo lahayn mayba kamid ahaan dadkaasi oo dilkaas linjeesiday dad oo shacab ganacsi dukaanley dantiyo in shaqaysada wahayn markasta qiil inaba looma helayo in si sharci darro qof muslim loo dilo balse kuma jirto waqtiga ramadaanka oo ah mid cibaado oo xataa ururada xaq jirka sida Taliban oo kale xabad joojin ay sameeyeen balse al-shabaab taasi waa ka indhalaayihiin. Sheekh Maxamed Sheekh Xasan iyo Sheekh Ilyas Ali Nuur waxay kamid yihiin culimada Soomaaliyeed ee sida weyn looga garanayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxay sheegeen in diinteena Islaamka ay ka soo horjeedo in la dilo qof muslim oo shahaadanaya. ما إلا رأي أرجع حتى سباب المسلم فسوق مد هذا آية اللي آيته بفاسقنا قلاس الله وقتاله كفر إن الله دجال لم تو مدله كفر مش مثلا إسلام كسلاس اللي dadkii oo maaragtay ama taageeri jiray ama shabaab oo maaragtay ay dhigi jireen waa dad maaragtay mujaahidiin ah maanta arka waxay dileen qof maskiin ah oo ganacsato ah oo maaragtay gurigiisa iska joogo asigi iyo haweenaydiisa zawjadiisa ayay isdul saareen ninkaas zawjadiisa hadii ay yiraahdaan